koob iyo soddon arday ka kala socday koob iyo soddon dugsi oo ku yaala magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxaa subaxnimadii hore ee saaka magaalada Boorama loogu qabtay tartan orada tartankani oo ay goob joog ka ahaayeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socday dawladda hoose ee degmada Boorama iyo wasaaradda waxbarashada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland. Tartankani orodka oo loo qabtay dugsiyada hoose dhexe ee ku yaala Boorama ayaa waxa orod dhan ku dhawaad 3 kiiloomitir kaasi oo ay ku guuleysteen dugsiga Al-Nuur oo ku yaala magaalada Boorama. kadib markuu soo dhamaaday tartankaasi waxaa munaasabad loo qabtay ardaygii ku guuleystay tartankaasi hadalla kooban oo halkaas ay ka soo jeediyeen mas'uuliyiintii ciyaaraha fuulan in hadda kadib ay dawladda hoose u fuuleyn doonto sanad kasta hal mar ama laba jeer 3 kiiloomitir oo ay ka qayb galayeen koob iyo soddon iskuul oo hoose dhexe ee degmada Boorama. tartankaasi oo ay dhammaan dhalinyarada loo qabtay wixii ay u baahnaayeen habeenkiisa oo aan si fiican u soo dhamaystirnay. waxaan mahadiska Allah subxaanahu wa tacaala maanta 25 bishii Abraar 2019 inoo suurtageliyey inaynu qabsanno mid ka mid ah hawlihii waxbarashada oo waxbarashadu waxa weeyaan waa inaan mentally xagga maskaxda iyo xagga jirkaba markaaynu ka wada shaqayno taasoo inoo qabsoontay koob iyo soddonka dugsi ee magaalada gudaheega. dugsiyadaasi ama gaar ahaadaan ama dugsiyada dowladda ahaadaan dhammaan ay ka soo wada qayb galeen waxay noo suurtageliyeen alxamdulilah allah baan ku mahad celinaynaa. run ahaantii waa maalin farxadeed waa maalin ka mid a waa shaqadeedii waajibaadka shaqayna saarnaan gudanayno. waxay maalin farxadeed u tahay waa u bixiyey waxaan meesha joogaa waxaan tartanka loo qabtay waa u bixiyey degmada. mas-uuliyad baa laga saaran iskuullada hoose dhexe inaan mar walba baahiyaadkooda gaarka ah aan wax ka qabno. hadday dayactar tahay, hadday orado tahay, hadday dhiirigelin tahay, hadday caafimaad tahay, intaba inaan ka caawinaayay waa mid la saaran. aynu maanta loo farxad gelinayno waxbarashadana maayarka dowladda hoose iyo wasaaradda waxbarashada sekandariyada haddii la soo gasho waxaan aad u mahadnaqayaa tani. munaasabadaasi kadib maayarka degmada Boorama Maxamed Xuseen Meerane iyo isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal Sheeki Cismaan qaar ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ku yaala magaalada Boorama. maayar kulaahay waa wax qabad aad iyo aad u muuqda micnihii ubadkoo meesha wax ku dhiganaya loo hagaajiyo oo quruxdeeda looga shaqeeyo aad buu dhawaan ku baraya ilaah baa ka jisaysin. ka soo wareegay toddobaad maalintii ay iskuulkan aan ku imanay kormeer aan baahidiisa weydiinay in ay meesha wax looga qabto ay sheegaan. alxamdulillah isla toddobaad gudihii waxaan ka jawaabnay baahidii ay noo sheegeen oo ahaa dugsigan galbeedii dhammaan deyrkiisa ku wareegsan oo ah 100 iyo 100 isku wareega ayaa waxaan gebigiisaba ka qabanay dayactir. mashruucii hore waxa muraayadaha oo laga bedelay daaqadihii oo lagu xidhay oo ay filisay dawladda hoose maayarka magaalada oo filiyay iyo mashruucii kale ee ku xigay oo ah deyrka iyo aad u madooba oo laga dhigay deyr aad u nool oo ay bulsho ku dhex nooshahay. waxaan rajaynayaa waxaan iyo wax ka badan baynaanu shaqada qorshahaasi maaha mid maanta ku dhamaystirnaanaya laakiin waa mid socon doona baahi kasto iskuullada degmada Boorama inaanu insha Allah hawsheeda laga wada qabto. maayarkuna uu diyaar u yahay waan uga mahadnaqayaa. run ahaantii degmada 3 iskuul ahaa kan imkaan taaganahay Sheekh Cismaan iyo Galbeedi iyo Sheekh Abdiraxmaan Nuur. run ahaantii aad bay noo farxad gelinaysaa talagalkaygii hawshii sidaan ugu talagalnay mar hadduu qabsoontay. وعبد الغني محمود عبد الغني إسماعيل زوم نيوز TV Boorama.